sideen isugu diyaariyaa imtixaanka iskuulka, kollejka ama jaamacadda? Waa su'aal ay arday badan isu weydiiyeen. Iyo golob inaan kula wadaago 8 dariiqo oo aad isugu diyaarin karayso imtixaanada. Kow, jooji cabsida. Xilliga imtixaanada waxaa caado ah arday badan inay la dhibaatoodaan cabsi ka haysata imtixaanka. Haddaba ogow sababta kaliya ee ay cabsidaas u badan tahay ayaa ah in diyaargarowgaagu uu hooseeyo. Mar kasta oo uu diyaargarowgaagu badan yahay waa mar kasta oo ay cabsidaadu yaraato. Tan kale, inaad wax barato waa wax lagu farxo, ma ahan wax laga murugoodo. Inaad ka walwasho wixii aad soo baratay in lagugu tijaabiyo waxay ka dhigan tahay inaad si fiican soo baran. 2. Noqo qof fursadaha kale ay u furan yihiin. Ha ka baqin inaad imtixaanka hesho darajo hooseysa, waayo haddii aad hesho darajooyinka sareeya waxaa laga yaabaa in hamigaaga kaliya ku soo koobo inaad noqoto dhakhtar ama injineer. Laakiin marka aad hesho darajo dhexdhexaad ama mid hooseysa waxaa laga yaabaa in fursado kale ay kuu furmaan oo aad noloshaada ku horumariso. 3. Iskugu diyaari si hore dhaca imtixaanadii hore. Waxaa jira imtixaanadii hore oo la qaaday oo aad heli karayso ama aad soo iibsan karayso. Isku day inaad baratikeyso imtixaanadaas ugu yaraan 5 jeer ama ka badan. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad wax badan ka fahanto imtixaanka soo socda ama ugu yaraan la keeno mid u dhow. 4. Si koox ah wax u diyaarsada. Xilliga imtixaanada inaad si tiim ah wax u akhrisataan waxay idinka caawinaysaa waxyaabo badan barashadooda iyo fahamkooda, waayo arday kasta wuxuu ku fiican yahay maado gaar ah, taasoo keenaysa inuu midba kan kale ka caawiyo waxa ka dhiman. 5. Weligaa waxa xifdin. Waxbarashadu maahan xifdis ee waa faham. Iska ilaali inaad wax xifdiso, beddelkeed isku day inaad wax walba iyo su'aal kasta aad fahanto. Haddii aad wax soo xifdisay la timaado imtixaanka, marka ay wixii kaa dhumaan waxaa laga yaabaa inaad halkaasi ka qaado shoog iyo naxdin, kadibna aad wax badan garan weydo ama aad sii khalado. 6. Cun cunto fudud. Iska ilaali maalmaha imtixaanka aad gelayso cuntooyinka culculus, beddelkeed 50% cuntadaada ka dhig furuudka iyo khudaarta cagaaran, waayo labaduba maskaxdaada waxay siinayaan firfircooni iyo feejignaan dheeraad ah. Yeelkeeda, haddii aad cunto cuntooyinka culculus sida hilibka iyo cuntooyinka burka laga sameeyo waxaad dareemaysaa daal iyo caajis, taasoo keenaysa inaad wax badan muraajacayn. 7. Ilaali enerjigaaga. Iska ilaali inta imtixaanka lagu guda jiro in enerjigaaga meel cidla ah ku bixiso. Iska yaree isticmaalka telefoonkaaga, daawashada, dhegeysiga, hadalka iyo fikirka badan, waayo intaba waxay kaa qaadanayaan enerji badan. Marka aad seef garayso enerjigaaga waxaa kuu fududaanaya inaad xilli kasta wax akhriso ama aad diyaariso. 8. Ha ku fikirin inaad noqoto qofka ugu sareeya. Beddelkeed isku day inaad muujiso wixii aad baratay iyo inaad ka fiican tahay sidii aad shalay ahayd. Ka fikiridda inaad noqoto qofka ugu sareeya iskuulka ama jaamacadda waxay ka dhigan tahay inaad doonayso in dadka kale ay guuldareystaan adigana aad guulaysato, taasoo diin ahaan iyo damiir ahaanba aan wanaagsanayn. Dhammaan inta imtixaanada galaysa waxaan u rajaynayaa guul. Mahadsanideen.